kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo inkaga imaanaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. barnaamijka toddobaadkan waxaa noogu martay wasiirka gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Axmed Macalin Fiqi. mudane wasiir waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo inaad wareysigan gaarka ah nasiiso. waxaan ka wareysan doonaa qorshaha wasaaradda gaashaandhigga ee dagaalka khawaarijta. ugu horeyn wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa hoggaankeeda la wareegtay. marka xigta waxaa dadka Soomaaliyeed la wadaagtaa qorshaha wasaaradda ee dagaalka khawaarijta wadankan looga xoreynayo. waa mahadsantihiin TV-ga qaranka tiimka aad iyo aad baa u mahadsantihiin xafiiska wasaaradda gaashaandhigga nagu soo booqataan. runtii waana bogaadinaynaa shaqada xooggan oo aad haysiin aan ognahay tiimka warbaahinta qaranka in dad uga dhinteen qaar uga dhaawacmeen ayagoo furimaha hore ka soo tabinaya xogta rasmiga ee dagaalka lagula jiro khawaarijta. tan xigta runtii dee qorshe dagaal horta inta badan lama faahfaahiyo laakiin keliya waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed in isbuucyadii la soo dhaafo dhan aan loo kala kicin in kooxaha khawaarijta sidii dalka looga qoban lahaa ciidankuna horumarkii iyo guulihii horay uu u gaaray uu u sii wadi lahaa qorshe noocaas la xiriira oo aaga kala duwana in lagu guda jiro. badankooduna hadda dhammaad inay ku dhow yihiin waa la ogyahay xilliga qorsheyntu iyo xilliga fulinta mashruuc kasta ama wax kastoo la qorsheynayo waqtiga qorsheyntu wuu dheeraadaa laakiin waqtiga fulinta wixii la soo qorsheeyay hal mar baa la guda galaa. marka dadku xoogaa waxaa laga yaabaa inay u jeedaan in dagaaladii weli meelaha qaarkood si khafiif ay uga socdaan marka laga reebo gobolka Hiiraan oo runtii muujiyay maalmihii la soo dhaafay fagaarayaasha dagaalka ka muujiyay wacdaro guulo waaweyn iyo duruus badan u dhigay kooxaha khawaarijta guulo waaweyn gaaray marka laga reebo meelaha kale dadka waxaa laga yaabaa laakiin qorshe xoogan oo runtii aad u adag ayaa lagu guda jiraa. insha allahu tacaala dadka Soomaaliyeedna si practical ah ayay u arki doonaan qorshahaas oo la fuliyay oo socda iyo khawaarijtii oo dabada looga dhacay sidii horey loo jabiyo oo kale in dib maaragtay hawshaasi ay noogu bilowmi doonto. marka qorshahaasi si fiican buu u socdaa waana runtii waxaan meelo gabagaba ayay meelaha qaarkoodna uu maraya. waa mahadsantahay mudane wasiir. ciidamada macawisleyda dabcan dowladda qorshe ayaa uga yaala ammaantoodana hadda waad ka dhawaajisayoo inay kaalin weyn ka qaadanayaan dagaalka. marka dowladda maxaa uga qorshaysan ciidamada macawisleyda haddii ahaa lahayd qarameyn haddii ahaa lahayd in sidooda loo sii taageero? runtii macawisleydu waa dad xaq u dirir ah waa dad inta badan ceelashoodii biyaha laga gubay waa dad xoolahoodii laga dhacay waa dad caruurtii ay u jeclaayeen xoog la yiri waa laydinkaga askaraynayaa waa dad gabdhahoodii ay dhaleen qaarkood xoog looga watay. marka dadka dad la cadaabay qaar beerihii ay beerteen la yiri waxaad bixinaysiin 70% raashinkii aad soo saarteen baa laydinka qaadanaya. dad marka naftoodii iyo maalkoodii iyo cirdigoodii iyo sharafkoodii xadgudub tiro badan kala kulmay way kooxaha khawaarijta diin iyo shaqo aan wax shaqo ku lahayn diinta. dadkaasi sanawaad hore ayaa qaarkood dagaalka bilowdeen. aadan yabaalo kale waxaan ognahay sanadkii 2018 in cali dasar hibaad cali dasar inuu halkaas iyo koox dhalinyaro iyo odayaal isugu jirta inay ka bilaabeen aadan yabaal agaarkeeda dagaalka dhana kooxaha khawaarijta. maxay ahayd ninka ku-xigeenkiisa ka hadlaya oo yiri gabdhaheennii iyo haweenkeennii baan xataa kaga maaro weyn waana addoonsi bayna geliyeen. meelo kala duwan bay marka macawisleydu ay ka diriri jireen laakiin waxaan hubnaa inaanay garab heli jirin wixii ka horreeyay dowladda hadda jirta ee xukuumadda dan qaran ee hogaamiyo maaragtay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ilaa dagaalkii ballaarnaa 2022 inaanay dadka Soomaaliyeed
oo hadba meel ka kici jiray oo qabaa'il badanoo waxaan ognahay muxuu ahaa meesha la yidhaha galcad waa la dirireen ceelbuur waa la dirireen ceelhuur meesha la yidhaha xardheere dadkeedu waa la dirireen dad shabeelladan hoose qoryooley ilama iyo baay iyo bakool iyo gaar dadku way la dirir jireen hadba meelay ka kacdoomi jireen laakiin dowlad u gurmata oo dhaawacooda soo qaada dowlad rasaasta ku kaalmaysa dowlad raashinka mararka qaarkood siinaysa ma aanay haysan marka dowladdan waxay uga soconayd xukuumadihii hore imaan jiray inay dadkii garab helaan maantay ciidanka soomaalida iyo ciidanka macawisleydu waa jamban bijamban la garabka isku hayaan dhaawac isla qaadayaan dagaalka isla gelayaan dhufayska iskula jiraan waayo waxaa midaysay qadiyadda ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada qarankuna dee waaba shaqadii u asaan garaysnaayeen dadka bulshadana dhibaatadii shabaabku u geysteen ayaa keentay inay kacdoonkaas sameeyaan marka kacdoonkii iyo dowladdii oo maaragtay waajibkeedii ciidamadeedii gudanayaan ayaa isla kulmay runtii haddana waa isla jaan qaadeen maanta ciidamada madaxweynuhu habeen hore waad arkayseen shalay galab daraad galab waa kii isbitaalka ugu tegay ciidamadii macawisleyda ahaayo mujaahidiinta ahaayo tiiraan isla maalinkaas soo dhaawacmay diyaaradda soo qaadaysa waa diyaaradihii xoogga dalka ay lahaayeen oo maaragtay inta meesha furinta ugu tagtay ayay kasoo qaadaysaa kasoo daadguleynaysaa isbitaalka la daaweynaya kharashka dowladda soomaaliya ku socdaa madaxweynihii iyo taliyaashii iyo wasiiradii baa dadkii heegan ugu jira xalay munaasabad weyn baa ka dhacday hotel ka mid a hoteelada xamar oo xildhibaanadii intay isugu yimaadeen xildhibaanadii qaranka in badanoo ka mid ah iyo wasiiradii ay leeyihiin dadkaas waa in la garab istaagaa macawisleyda la garab istaaga dal iyo dibadba marka sidaasaa lagu taagaa macawisleydu marka waa rugni adag oo xaqoodii iyo xuquuqdii ay lahaayeen nolosha inay ku noolaadaan si xora inay ku noolaadaan deegaamadoodii shabaab u diideen taasna kacdoonkaasna u sameeyey kacdoonkaas marka dowladda soomaaliya way garab istaagtay oo aniga hadda kuu sheegayay inta taakuloo la siiyo annagu marka arinta aniga macawisley baaban ahayba anaaba ka tirsanba macawisleyda 2021 baan keligay mudug kala diriraynay oo bacaadweyn ka qabanay oo camaaro ka qabanay oo dhulkaasoo dhan aan kala diriraynay dadka ila joogayna macawisley ciidan xoog dal bay ahaayeen runtii marka waxaan aaminsanahay in macawisleydu ay yihiin rukni iyo tiir adag oo tiirarka dib u xoreynta looga xoreynayo dalka khawaarijta inay yihiin in dowladda soomaaliya tixgelin fiican siinayso in haddaba intii diyaar u ah inay ciidamada xoogga dalka ciidamada kale inay ku biiraan inay u furan tahay qaarna ay ku biireenba qaarna hadda dee xorriyaddooda ayaga ku xiran tahay laakiin macawisleydu qorshaan u haynaa xooggan oo waxaan rabnaa meel center ah oo howlgelin dhexe ah oo dalkoo dhana oo in taliska xoogga dalkan ka wada hadlayna arrintaas in loo sameeyo hadda kadib dad diyaarsan oo nidaamsan oo tiradooda iyo hubkay haystaan iyo qalabkay iyo baahida kale oo ay leeyihiin iyo waxaas oo dhan si lagu talagalo waa dad marka ah rabnaa inaan hadda nidaami loo ekaysiiyo waayo ciraaq oad aragtay dalkaas weyn oo argixisadu ku duushay oo alqaacide iyo isis iyo waxaa ka xoreeyey hadda daamaan ka nimid 3 casho ka hor waxay nooga sheekeeyeen in ciidamada macawisleydu iyo ciidankooda qaranka oo isku barbardiriraya guusha ay gaareen inay keentay iyo internationalka iyo dadkii caawinayay oo korka caawinayay iyo hoosba guud ahaan marka macawisleydu qiimo gaar ay nagu fadhiyaan meel kastoo ay joogaan waa ka salaamayaa meel kastoo ay joogaan waa uga hambalyeynaya guul ayaa joogtiin runtii waxaad muujiseen in khawaarijtu ay daciif yihiin inay khawaarijtii nasan waayeen oon ognahay hiiraan hadda waxa ka dhacay maalmahan awal khawaarijtu iyagaa weeraro qaadi jiray laakiin hadda khawaarijtii waa nasan waayeen miinooyin bay hadda nafka raadiyeen oo isku wareejiyeen meeshay galaan waa ka dabagelayaan dhaawacoodii bay meelay geystaan waayeen runtii marka macawisleydu dowrkaas weyn bay leeyihiin waxaan leenahay kuwa galgaduud jooga kuwa mudug jooga kuwa hiiraan jooga kuwa shabeellada dhexe jooga kuwa gobolada baay bakool jooga kuwa jubbooyin jooga meelka shabeellada hoose meel kastoo ay joogaan macawisley adeerayaal diyaar garooba
suurtagal maahan cunug yar oo qaarkood gobollada ay degan yihiin aan ka imaan oo meelo kaloo fogfog ka yimid iyo kuwo ajaaniba inay idinku addoonsadaan deegaamadiinni inay odaya hadba intay idin soo wacan yidhahdaan dowladdu garab idima siinayso kuwa mucaaradka ka hadal siiyaan arrintaas marka waxaa weeye tashwiishkaas inaanay tashwiishka lagu gelinayo guushooda lagu gelinayo shakiga iyo mugdiga inaysan dheg jaraq u siin guul bay joogaan khawaarijtiina waa nasan waayeen khawaarijtii cabaadkooda baxaysa meelay galaan bay laayihiin waxay leeyihiin macawisleydaaba nooga daran cid kastaba marka guul baa joogtiin horeyna u socda halgankaasna waad ku guulaysanaysaa sidaad hore ugu guulaysateen haddana guulo ayaad ka soo hoyseen baan leenahay si gaara waxaan rabaa shabeellada dhexe oo runtii maalmahan aan ku wajahannahay annagoo dhan inay horay waxay ahayd gobolkii waxaan u malaynayaa dagaalada halkan intay ka bilowdeen xamar lagu leefay inuu ahaa guul weyn baa la wada gaaray markaas laakiin khawaarijtu horumarkay ka soo horjeedaa meesha la yidhi satellite baa laga samaynayaa cadale meesha la yidhi dekadii iyo aeroboraa la geynayaa meelaha la yidhi shidaal u dhow shidaal baa laga qodayaa waay horumarkay diidan yihiin gobolkaas inuu horumaray diidan yihiin in dadkiisu iyo dhallinyaradiisu shaqo helaan bay diidan yihiin waxaan leenahay si gaara waa in way tabar daran yihiin in horay loo socdo in lagu dhaqaaqo in wacdaro laga muujiyo fagaarayaasha in baktigooda iyo meydadkooda in ummadda soomaaliyeed la tusiyo inaanay tabar lahayn sida hore loogu tusiyo oo kale waxaan aaminsanahay in mar dhow gobolka shabeellada dhexe uu ka xoroobi doono kooxaas khawaarijta ah abaabulka socda iyo xogta aan ka hayo intay la egtahay intaba waaya ciidamada macawisleyda dabcan dowladda taageeray ka helaan oo hubka iyo rasaasta iyo siyaasiyiinta qaarna waxay sheegeen oo dowladda ku eedeeyeen inay khatar ku yihiin oo hubkani iyagu ama isku dilayaan ama dowladda ay kula dagaali karaan ama ay khawaarijta uu gacanta u geli karo marka maxaad ka leedahay arrintaas adoo si gaara siyaasiyiinta arrintan maxay arkayaan siyaasiyiinta wallahi waxba arkamayaan niman ina beelay waay niman ilaahay wixii fiicnaa ka indhatiray waay niman horumarka dalka ka jira aan u jeedin waay niman dalku inay khawaarij iska xoreeyaan aan rabin waay niman xataa inay beri hogaamiyaan soomaaliya aan rabin waay niman qandaraasyo qaarkood soo qaatay aan ognahay qandaraaskay soo qaateen iyo cidday ka soo qaateen ayay qaarkood yihiin marka annaga waxaan qabnaa nimankaasi inaanay ka sokayn kuwa lala dirirayo bilcagsi dowladdu hub ma siiso dadka soomaaliyeed wiil soomaaliyeed oo dalka soomaaliya ku noolaa ay ku koraa tahay dowladdu hub cidna ma siin hubka dadku iyagaa haysta soomaaliyeed way iska hubaysan yihiin bidabiicati waxaana keenay dee dowladdii dhexoo burburtay iyo dagaaladii qabaa'ilka oo maaragtay dadku iyagaa ishubeeyey laakiin dowladda soomaaliyeed waxay ku caawinaysaa in dhaawacooda ay soo qaado inay raashinka meelaha la joogo raashinka ciidanka la cunaan inay rasaasta lagu dirirayo ay maalinkaas maalin dagaalkoodii iyo waxooda in la siiyo laakiin hubka dadku iyagaa haysta khatar kuma ahan waayo khatari qofkii yidhaahda waxaa khatara wiilka macawisleyda oo iska xoreynaya al-shabaab oo aan u arkin al-shabaabka la iska xoreynayo khatar qofkaas afkaartiisa iyo asaguba siyaasiga waa sheegaysa afkaartiisa iyo asaguba khatar bay ku yihiin ummadda qofka u arka qofka la addoonsanayo oo caruurtiisii qasab lagu askaraynayo oo gabdhihiisii qasab looga qaadanayo oo beertiisii wuxuu ka soo saartay dalagii uu soo beertay xoog looga qaadanayo ni qofka isku daya intuu qorigiisa qaato geela uu haysto intuu gato qori ku gato suu isaga xoreeyo kooxahaas khawaarijta qofka u arka qofkaas khatar aan u arkin afkaarta khawaarijta iyo khawaarijtu inay dalka qabsato aan khatar u arkin qofkaas isaga iyo afkaartiisa iyo siyaasaddiisaba dadka Soomaaliyeed iska fiiriyaan way isaga khatar ma ahan dadkaas waxaa ka khatar badan xataa haddii qaar qalloocda ay ka soo baxaan
waxaa ka khatar badan 1000 jeer iyo مليون jeer kooxa khawaarijta ka khatar badan marka waxaan leenahay waa sharaf ay agteena ka leeyihiin karaama ay leeyihiin waxay mudan yihiin in taalooyin loo dhiso waxaanan ogaan doonaa maalinka laga soo taqaluso nimanka khawaarijta in la abaal marinayo in nabadoono ay ku dhinteen bana nugnahay inay shabeellada dhexe nabadoono ku dhinteen inay galgaduud nabadoonadii galcad ku dhinteen in nabadoonkii ugu weynaa hiiraan cilmi hagar inuu ku dhintay isagoo qori wata oo dagaalamaya ninna nama dhihi karo cilmi hagar baa khatar odayaasha kaloo hadda ku jira furinta horaa khatar ah qofna dhihi karaa ma jiro runtii balse dadkaas sharaf iyo karaamay mudan yihiin dadka waxaas ku hadlayana waa dadka aan sheegayno bankruptcyga siyaasadda uu ku dhacay oo meel jihaday ka halowday oo bowsaladii ama waxaa ka halowday muxuu ahaa doorbinkii siyaasadda ayaa ka halaabay hadba meel xun bay ku fiirinayaan siyaasadooda luuq xun bay xasan sheekh bay waxay u malaynayaan in macawisleyda la caayo inay xasan sheekh caayayaan madaxweynaha waxay u malaynayaan ciidankoo la caayo inay xasan sheekh caynayaan ninka saas dhahaya madaxweynuhu berri rabaa inuu tartabo xaguu ciidan ka keenaya hadduu ciidankii joogay yidhaahdo waa burbureen hadduu qadarin waayey shuhadada ciidanka maalin kasta ay qadimayaan naftooda qadimayaan oo naftooda soo hormarsiinayaan hadduu qadarin waayey siduu u rabaa dalkan inuu u xukumo berito mabda'ee ku xukumaya ciidankee xukumaya ma ciidanka hadda uu caynaya oo khawaarijta uga hilinaya ayuu rabaa hadhowta inuu taliyo u noqdo ilaa madaxweynuhu taliyaha guud oo ciidanka weya runtii aniga waxaan leenaha nimankaas horena qaar waa ula hadalnay haddana waa la hadlaynaa adeer deegaankaadii waa la haystaaye kaalay safka hore soo istaag xildhibaan baa tahay kaalay safka hore soo istaag dadkaadii baa maalin walba khawaarijtii odayaashii bay la shirayaan oo leeyihin ciidana sii waa ognaha annaga deegaamada ceelbaraf iyo afarta tuulo iyo waxa dadkii bay la shirayeen daraadii oo maalinka ka horreysay leeyihin kaalay ciidamana siiya wiilal yareeroo aan tababarana siiya haye siyaasigii iyo xildhibaanka hadduu halkaa ka yidhaahdo ciidanka waa isdhiibeen uusan ka hadlin arrintaas uusan odayaashiisi la hadlin uusan dhihin iska jira oo uusan asagoo horkicin sidii deegaankiisa loo xoreyn lahaa ceeb bay ku tahay runtii waana runtii waana faydaynaa anago mararka qaarkood waa la faydayaa qofkii isagu isfayda oo bannaanka iskeena oo xishoon waaya waa la faydayaa waana laga hadlayaa kaalay deegaankaadii xoreysaan leena way dawladda access ma siinaysaa inay deegaanadii tagaan oo hogaamiyaan dagaalka ya ma ogasha dawladda inay xildhibaanada kale maxay uga duwan yihiin xildhibaanada kale oo deegaamadooda jooga maxay uga duwan yihiin waxba uguma duwanaa xildhibaanada kale waa joogaan waa tagaan wasiirada taga safka hore ku jira xildhibaan waajib baa dadkii soo doortay deegaan doorashadiisii waajib baa ka saaran deegaankiisii waxa ugu weyn oo waajib yahayna iskuul inuu geeyo hadduu gabo isbitaal inuu ka furo hadduu gabo waddo inuu u dhiso hadduu gabo at least waa inuusan ku fiirsan al-shabaab inay qabsadaan oo laga dareemaa inuu dadaal muujinayo waa inuu yidhaahdaa ciidan hallay siiyo deegaankaygii baan maaragtay ii dhow waa inuu kuwa macawislahada jooga aan la wicin oo la dhihin ka soo baxa meeshee in la yidhaahdo waxaa weeye meeshiinana ku jira ciidana dowladda inuu uga dalbo wixii kaalmaha la siin karana la siiyo anugu marka taasaan runtii dhihi lahaa nimankaa siyaasiyiinta hadda aan sheegtay oo macawisleydana mar ceebeynaya marna ciidamada ceebeynaya marna dowladdii shaqadaas weyn qabatay ceebta la daba taagan wixii siyaasiya waa la isku mucaaradi karaa laakiin aniga ma aaminsani hadda meeshay wax ka raadinayaan in wax jiraan way wasiir Soomaaliya waxay dhanka kale horumaraa xoreynta barbar socda shidaal baa baaritaan lagu wadaa badda maraakiib ku jirta satellite ayaa la rajeynayaa in laga aasaaso eriyada cadale sida sheegtay qatar ma ku yihiin al-shabaab horumaradaas socda sideeda qatar al-shabaab wax kale oo looma soo dirin in dadka Soomaaliyeed horumar nabad nolol baraare inay ka hortagaan intaas ayay u joogaan maxay keenaysaa ninka meel ganacsi oo maqaayada qarxinaya hotel qarxinaya qarxinaya maaragtay airport qarxinaya
ninkaas qofkaas horumarkuu ka soo horjeedaa iska baddaadee shidaal iyo howlo waaweyn oo satellite iyo dhalinyarada soomaaliyeed cilmi iyo shaqaba ay ka helayaan iyo dekadiya ereborro iyo al-shabaab nolosha qofka soomaaliya ay ka soo horjeedaan nolosha inuu beerto wax ka yar ma jirto inuu qofku beerto hal jibaal inuu beerto 100 mitir wax ka yar ma jirto 100 mitir in la beerto waa ka soo horjeedaan dadkii waxay ku qasbeen inay bixiyaan raashinka 3 meelood 4 meelood 3 inay bixiyaan bay ku qasbeen dadkii beeraha leeyahay oo dhan waa kuwa qofkii beerta hal baa loo reebaya saddexda kale laga qaadaya maxay tahay qarashkii kaa galay ma dabooli kartid haddaad u baahnayd inuu caruurtiisa siistana dee baahidii waa ka yarta marka ujeedadu maxay tahay ujeedadu waxa weeye waa in qofkaasi inta barakaco xero barakaca iska galo wax soo saarka dalka oo dhan la joojiyo mashruuc ajnabi ah mashruuc ummadda soomaaliya u danaynayana diin qabtaan hadda ma jirto dadka in sidaas loo baado adiguna waa ogtahay xoolaha si lamid ah zaka la horumarinayo xagee ku aragta weligeed lama arag zaka la leeyahay 3 sano soo socota diin nimankaas dee waa niman diinta ka aradan waa mahadsantahay wasiir dhanka hiiraan al-shabaab waa laga soo jafay dabcan aadan yabaala akaabiga loo saaraya maanta shabeellaha dhexe abaabulka maxay ka ogtaa dawladdu waa dawladdu way ku jirtaa saraakiisha ciidanka oo dhan baa jirta ciidankii baa jira dad kaloo waxgaradaha jira runtii waa bogaadinaynaa dadaalada ay wadaan meel fiican bayna runtii hadda waanay ka hadlaynay meel fiican bay socotaa arrintaas shabeellada dhexe mar dhow insha allahu tacaala howlgalladeedii way bilowmayaan barashanadeedii meelo gebagabaa ayayna ku dhow yihiin diyaar garowgii in khawaarijta dib looga xoreeyo deegaamadaas waxaanan ugu baaqayaa sidaan horey ugu baaqay horey ha loo socdo waxaa weeye wiilal dhallinyarana way joogaan hubna waa haystaan dadkaasi geesinimo iyo maaragtay dadnimona waa leeyihiin waxaan aaminsanahay in horey loogu socdo nimankaas odayaasha ah gobolka shabeellada dhexe oo ah gobolada beeraha ku habboon in dadku ay beerahoodii xilli roobaadka laga faa'iideysto aad iyo aad dadku waxay isweydiinayaan wasiir fiqi oo tuuto wato farinta taagan goorma arkaysin waa dhowda hay shaki iska geli waa mahadsantahay taageerada cirka dabcan cirka weerarada cirka ah ee duqeymaha kaalin xoog leh ku leeyihiin cadowguna aad u necbiya dabcan marka Soomaaliya waxaa la ogaa inay diyaarada soo iibsatay Soomaaliya cirka ma isku filaasho ma gaartay mise weli kaalmay u baahan tahay arrintaasi faahfaahin ka wallahi waxa weeye cir iyo dhulba Soomaaliya hadda waa la kaalmeeyaa waxaana waa inoo bilaabeen ciidankeenu ugu shaqeeyaa ciidamo kalena waa noo joogaan oo Afrikaana oo muddo dheer dalka joogay oo howlgalladan aan rabno AUSOMka kuwa hadda loogu magac daray inay bilaha soo socda ay qayb ka ciyaaraan kuwa kaloo bilateral way jiraan sidaas si lamid ah Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda runtii visionkiisu wuxuu ahaa ciidankeenu inuu isku filaado bad iyo biri iyo cir intaba in qalabkii loo baahnaayo dhan la helo waad ogtiin ciidamadii badda hawshooda way socotaa oo waa tii lagula heshiiyey dowladda aan walaalahan ee Turkiga ciidanka cirka waa diyaarado dawladdu way soo gaday meel fiican bay hadda noo joogaan waa kuwa qaarkood dagaaladana way ka qayb galaan dhaawacyada iyo logisticadana qayb baa loo adeegsadaa runtii weli waxaan u baahannahay adduunkana caawinaya waan u baahannahay waa ay argagixisadu xuduud ma leh kuwa ISIS oo lala dirirayo waa ajaanib in badan oo ka mid ah kuwa al-shabaabka ajaanib tiro badan baa ku jirta qofku maanta halkan hadduu diyaarad ka raaco waddanka ugu fog wuxuu ku gaari karaa wax ka yar 24 saac ayuu ku tegi karaa asagoo afkaartiisii wixii xambaarsan marka waxaan dagaal caalami ah ayay Soomaaliya ku jirtaa waxaan isku soo bahaystay xoogag caalami ah ayaa dabada la soo galay meeshaan kana faa'iideystay vacuumkii iyo xogaag yaraayo dawladdu Soomaaliya ay maqnayd ama daciifka ahayd ka faa'iideystay marka adduunka garabkiisa waa loo baahan yahay waan u mahadcelinaynaa adduunka ugu horeysa dawladda Mareykanka oo runtii kaalin lixaad leh ka ciyaartay madaxweynaha cusub ee hadda Mareykanka Donald Trump soo u yimid يعني laabay dadaalkii Soomaaliya lagu caawinayay oo xagga ciidanka ah ama dhul iyo biri iyo tababarba ha ahaato marka bogaadin weyn ayaan u muujinaynaa iyo dawladaha kale
ayaguna runtii garab taagan Soomaaliya marka garab weyn bay yihiin waana midda argagixisada runtii wiiqday in badan oo kamid ah wiiqday awoodoodii oo meelo fog oo cumqiga ah oo kuwoodii madaxda ahaayo gafanayaasha ahaa ay hurdaan diyaaradaha inta dhaqaaqa u taga goobtooda inta u taga hurdada u diiday way madaxdoodii maadaama ay shacabka Soomaaliya hurdo u diideen awal waagi hore de halkaas ay gafanayaashu geedaha cambaha hoostooda ayay iska hurdi jireen dhiiga ummadda Soomaaliyeed jaqi jireen lacagta baada loo soo qaadana ay meeshaas ku maamulan jireen laakiin hadda har iyo hooyaad midka furinta hore ku jira iyo kan gadaal jiifa intaba furan waaye qof safe ah oo al-shabaab ma jiro qof safe ah oo ISIS ma jiro saacad walba waa la kor taagan yahay saacad walbana dhimashay la kulmaan hadday ka warrami lahaayeen khasaaraha gaarana runtii hal qof oo ciidankooda jooga ciidankooda furimaha maadaama de xiriirkooda iyo wuxuudiba uu go'an yahay oo telefoonadii u diideen haddii ogaan lahaayeen ciidamada yarka iyo ilmaha iyo furimaha hore ay keenaan runtii way kala yaaci lahaayeen mar hore kala yaaci lahaayeen marka kaalmo weyn ayay adduunku Soomaaliya la garab taagan yihiin maadaama argagixisada iyo mashruuc caalami ah uu yahay wasiir dawladda Soomaaliya dabcan taageero caalami ah heshaa si cadawgan khawaarijta oo la dagaalanto baaritaan ma sameyseen al-shabaab dhankooda taageero ma helaan caalami ah runtii de ururka caalami ah marka si isaga uma baahna baaritaan tiro badan al-qaacida waa urur caalami ah argagixiso caalami ah madaxdooda Afghanistan iyo halkaas ay joogi jireen waagi hore haddana de adduunkii bay branches tiro badan ku yeesheen marka dabcan way helaan hubka waa haystaan miinooyinkan ay sameeyaan way soo gashaa waxay ku socdaan oo maaliyada waa laga yaabaa in wax ka soo galaan marka urur caalami ah oo network caalami ah shabakad caalami leh oo iskaalmeeyo isgarab siiyo khubaradooda iyo waxooda iyo kulli u soo dira wiilashan Soomaaliyeed ma aqoon si miino loo dhigo si la isku qarxiyo xitaa fikirka isqarxiska fikir Soomaaliyeed ma marka waa ururkaas caalami ah sidoo u helayo dad khubara sidoo u helayo askar u dagaalanta ayuuna u helayaa taageerada kale oo ay u baahdaan laakiin dawladda Soomaaliya waa tii kala dirtay xagga fikirka xagga maalka xagga meedaanka iyo dagaalka marka kulli furmahaas oo dhan saameyn xooggan bay yeesheen laakiin weli waxaan aaminsanahay inay kaalmooyin ay helaan ma santahay wasiir ugu dambeyntii dadka Soomaaliyeed wasiirka difaaca qaranka u tahay qorshaha dagaal culusna ay Soomaaliya wajahayso maxaa fariin u diraysaa wallahi dadka Soomaaliyeed fariin waa ka dheeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed way og yihiin jaamacadaha dadkii beeraha aadi lahaa dadkii sida xorta u shaqaysan lahaa inay khatar kooxdaasi ay ku tahay nafta Soomaaliyeed horumarka wuxuu dhan inay khatar ku yihiin waxaan dhihi lahayn kuwaas arxan ma leh ehelnimana ma leh meel waa looga soo wada jeestay waxaan qabaa dagaalkooda si voluntarily ah si mutadawacnimo in la isku soo diiwaan geliyo dagaalka looga qayb galo waayo 18 sano ma tirsan karna 19 20 wiilkii hadda dhashay markii argagixisadan Soomaaliya ku bilaabatay 18 sano qaangaar way maanta iskuul sir ka bax dugsi sir ka bax mustaqbal buu rabaa annagoo dhan doon qaado ma tahriibi karno saxaraha Liibiyana la kuma xirxiri karo kan waa hodan dalka waxaan uga shaqaysan karnaa annagoo argagixisadaas iska dhamaynay annagoo argagixisadaas meel uga soo wada jeesanay inaad ka carartid waaqicii aad ku nooleedii realitygiina waxaa dhaanta waaqicina waajahdid oo face garaysid oo aad tiraahid alla ilaahay waaqican waa inaan gacanteeda wax uga bedelaa fursadaas way jirtaa ciidamada hal qorto marka koowaad ciidamada hal qorto si mutadawacnimana hal loo soo baxo dadka hubka haysta oo gobolada jooga oo maaragtay qabaa'ilka iyo ayagu marmarka qaar isku muuqdana adeer cadow ma ahan qabiilka walaalka ay kula degan jufada kale oo kula degan jufada adriska tiin cadawada ma cadawadu waa nimankaas khawaarijta cadawga horumarka
cadowga nafta, cadowga diinta, cadowga dalka, cadowga calanka. calanka xitaa ma nihin kooxahaas khawaarijta. isku diin xitaa ma haysano, oo nimankaasi waa niman diinta islaamka ka baxay oo nebigu sala allahu alay wasalam xadiiskiisii ku tilmaamay yamruquuna min addiini kamaa yamruqu rubxu min asahm. diinta waxay uga baxayaan sida fallaartu gamuunku fallaarta uga baxo kale. waa xadiis waa nebiga sala allahu alay wasalam. waa dad soo baxaya sujuudda waa kaa sujuud weyn yihiin baa la yidhi, waa kaa qur-aan akhris badan yihiin, waa kaa soon badan yihiin, waa kaa salaad badan yihiin. haddii la damco qofkiin in loo barbar dhigo qofka iyaga sujuudda wejiga madow, salaada iyo soonka iyo waxoo dhan waa kaa badan yihiin. laakiin islaamka iyo diinta waxay uga baxayaan sida fallaarta uga baxdo, gamuunka uga baxo fallaarta oo kale ayay uga baxayaan. waa nimankaas marka waa yaa liibaanay liman qatalahum ow qataluuh. qofkii dila ama ay dilaan baa liibaanay. adeer naftaan mar bay baxaysaa. horay nimankaasi in lagu socdo weeye. fariintayda aan gaarsiinayo macawisley iyo ummadda soomaaliyeed oo dhanna nimankaasi waxaa weeye meel waa in inta looga soo wada jeesto meel la saaro waaye. sugasho ma jirto. qof kastaaba meeshiisuu ku faran yahay inuu khawaarij dhibka u geysan karo u geysto. kan gudaha ugu jira, kan ka soo horjeeda, kan gaadi kara, kan jidka kaga goyn kara, shaqo kastoo la qaban karo waa in laga qabtaa nimankaas. fariinteeda taas waaye. aad baa umahadsantahay. wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane axmed macalin fiqi ayuu ahaa waraysi gaara siinayay telefishinka qaranka soomaaliya. aad baa umahadsantahay. baarak allah fiik. waa mahadsantahay. tan kulanti dambe nabadgelyo.